بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku sugannahay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaan maanta soo booqannay maamo Soomaaliyeed oo ka xanuunsan yahay wiil yar oo jira 3 jir ah magacaagana saddexan noo sheeg magacayga saddexan waa Ramla Cabdiqaadir Faarax waxaan u jeednaa cunug yar oo xanuunsan inahay cunugan maxaa ku dhacay cunugan waxaa ku dhacay isagoo daba lahayn oo dhashay xerooyinka wuxuu ku dhashay Dhadhaab gaar ahaan xagar dheer waan ka keenay iyaga ay keenay istaalka jaab oo isoo gudbiyeen 7 jeer camal waa la qalay markii ugu dambeysay hadda qalliinka lagu guuleystay caloosha dilaacsanka afku saxara ka keenay haddana kaadidiisa had ma laho isagana nimaydiisana kullayba ma fiicna dhakhtar u baahan yahay beeb baa ku jira tuuba ku jira macnaha qaybta aragnimadiisa laga qalay xiniyo hoosan oo ka kaadinayo ibna laho ka hadda waxa jeedana qalitaan meeshan weyn loogu sameeyay qalitaanka maxay qalitaanka waxa waaye daba muulahayn kalidu ka saxaroon jiray muddo 2 sano ka saxaroon hadda wuxuu qalan yahay 8 bilood camal caloosha dibrayso si uu joogo inta ma qaadanayo caanahaasan ku qasbaayo oo hadda u helay iyo hadda u waayo ma fariisto waa raadiya ma socon karaa wuu soconaa laakiin aad uma socon karo talaabo masaas waa inuu daba dhagay sida ilmo 3 jir oo kale uma ordaayo waa nin jiifo hadda waxa jeedaa meesha inuu cunayso ma xanuunaysa meesha waa xanuun afraad sac waan ka reebi caloosha way kala koreysaa si fiican uma qalno halkaas hadda waxba ku jiro habeenkii marmar oo cabana istaaladana iskala carraya oo lugtaan marmar cirka ku dhigaysa aan ka seexanayna subaxda istaal la aadmo ogiyo waana dhankii laga qalay kaada way gubaysaa dabada marmar hilib guduud noqonaysa daawan raadinaya maalinkaas istaal la ka dib wareega marmar ashubni mataga ku soo booday inta soo jeer aan wiilka inta dhalay istaalka ma istaagin daraada ugu dambeysay waan geeyay dhiig uu ka dhamaa 3 jeer 4 jeer dhiig waa lagu shubay meeshaan qaxootiga ku tahay meeshaan waxa u keentay dhakhtar qaxootigan ku ah dad islaana qarsaarna la nool waxa la nooshahay dad islaamada la noolahay maamo Nairobi joogto maadaama xiriir qaxootiga ka imaatay intaana kaarka lagu bedelay Nairobi wax la qabtan ma ilaa hadda kijaabi xataa dhowr jeer ay qaleen حتى ما صعونها سفعا. أوكي ما غير رايستا. كان يمتكلا يوريسكا. متكلا يوريسكا ركسان. أو طبعاً كبلاد جرا. أوكي أبي ساوي الكاير. ودنت أبي. أبي سوي الكاير. وأقولها عدنا إلوك تاقول اسمه. تاقول اسمه. كأبي سنحنون كمركو كأركو كعرّ. متكلا يوريسكا سلبت صارنا أبي سوي. مركان جورس سقدرتي سانكو جورس مركو أركو ويلكين وتجي. هذا عيدان كترسن ما إلهي ما أجيه. marka waxa haysataa cunugan yar oo ah agoon iyo midkaan yariisko meeqa bilood jira kaas 10 bilood jira oo macnaha ciidan masruufta malaha macnaha familka hadda guriga joogtiina maamadana qaraabanaha hadda aan la jooga bishan kiridi xataa waa iska bixin weyn iyo inta naga bixin jirto way goosteen okay marka maxaa mujtamacana daawanayaan aad ka codsan lahayd inay wiilka dhakhtar ii geeyaan wax ii tar kalaan ii taran haddana isbitaal u baahan neerfaha laga haayo ma socon karo wili kaadidiisa hadda wuxuu yahay maanta lama garanayo oo ibtika ma kaadanayo waa nin saan beeb ugu jiro xanuunsan inuu ka jiray ma socon karo ilmaha hataa lama ciyaar kale waan ka ilaalinaya saan habeen maan u haya eegana waxa ilaa 5 sano yuunu ilmo iyo waxa la ciyaar saa u hay ilaali intuu 5 sano ka gaaray dhiiga ka dhamaanay si uu joogo waa saa uu ku bilaabay markuu kulida ka saxaro intaas inuu ilaahay caafiyo inuu meel istaal caafimaad la iigeeyo maadaama uu wiilka qabiya qalninkiis dhakhtarina weeshid ina dhakhtar u helan rabaha oo kala tacaalo oo maanta nin ma mustaqbal aan ka dhigo meel joogan ku ogaado ka telefoon laga la soo xiriirna wallahi telefoon Safaricom ma wata 07 04 52 78 63 insha Allah warjeenina inuu mustaqbal yeesho caafimaad dhakhtar fiican helo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.